haweenka yaa ugu fiican oo ugu khayr badan markaasaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay haweenta saddex tilmaamood leh inay ugu fiican tahay allatii tasurruhu idaa nadar haweenayda waxaa ugu fiican ninkeeda markuu eego farax gelisa markuu arka ayuu farxaya wajigeeda furfuran oo farxad bay ku soo dhaweynaysaa wax uu dhibsada ka arki oo mahayo wanaaga ka muuqda ayuu ku farxaya way farax gelinaysaa wa tutiicuhu idaa amar hadduu amar siiyo wax amrana way adeecaysaa ka hor imaan mayso amarkiisana caasin mayso walaa tukhaalifuhu fiimaa yakrah fii nafsiha wa maalihi baa nebigu calayhi salatu wasalaam mana ku khilaafayso oo u gadaal mari mayso wax allaaliya waxa uu nacahayana oo asagu karaahiyeysanayana ku khilaafi mayso samayn mayso hadday waxaas yihiin wax nafteeda quseeya nafteeda wax allaaliya wax uusan raalli ka ahayn ku samayn mayso calaaqo kale iyo xiriir kale midna yeelan mayso maalkiisana wax uu nacahayo ku samayn mayso maalkaagii waa lagu ilaaliyey zawjadaadii xumaan uga baqi maysid iyo calaaqo kale iyo xiriir inayna yeelato hadduu fiiriyo wuu ku farxayaa hadduu amrana amarkiisa ayay adeecaysaa oo qaadanaysa haweenta sidaasi zawjka ay guriga u joogto wax nimcaahoo ka maqan male ilaahay ku shukriya subxaanahu wa tacaala wuxuu soo gelayaa nebigu waa ka yidhi addunyaa mataac wa khayru mataaci addunyaa almar'atu asaalixa adduunyadu waa raaxo raaxadeedana waxaa ugu qiimo badan haweenay saalixada ayaa ugu qiimo badan haweenta saalixadda ah nebiga calayhi salaatu wasalaam janno ayuu ugu bishaariyey haddii tilmaamaha salaaxa laga helo wuxuu nebigu yidhi idaa sallat ilmar'atu khamsaha hadday salaadaheeda shantaa ay tukato wa saamat shahraha bisheedana ay soonto wa xafidat farjaha farjigeedana xumaan ay ka xifdiso wa ataacat zawjaha zawjkeedana ay adeecdo warkiisa ay maqasho qiila laha dkhuli aljanna min ayi abwaabi aljannati shi'ti waxaa loo yidhaahdaa jannada gal iridaheedana iridda aad doontid ka gal ayaa la yidhaahdaa bal u fiirso gurigeedii bay joogtaa janno ayayna kasbatay ayadoon aan tacab kaliya midna aan gelin shaqo iyo orod midna aan gelin oo gurigeedii oo ay joogtay ayay ku cibaadaysatay inay ilaahay awaamirtiisana ay qaadato zawjkeedana adeecdo markaasay waxay intaa ku hesho ilaahay uu ku siiyey subxaanahu wa tacaala in loo yidhaahdo jannada iriddaad doon